الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أيها الأحبة في الله، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وربي تبارك وتعالى أوحيودي oo u sheegay waxyaalo badan oo horay u dhacay, waxyaalo markaa jiray oo taagnaana looga waramay, waxyaalo soo socdo imaan doonana warkeeda la siiyay, ayaa isaguna salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ummadiisa wuxuu u sheegay wixii khayr ee uu og yahay, waxyaalaha soo socday imaan doona ee saameynta lana nabigu waa uga waramay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. wuxuu nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi zamanka iyo waqtigu inuu fasaadi doono, mar walba oo dhanka qiyaamada loo sii dhowaadana inay isbeddello waaweyn imaanayaan oo dadka ku dhici doona iyo deegaamadaba. in badan buu nabigeenu ka warramay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. waxyaalaha uu sheegayna waxaa ka mid ah 6 arrimood oo hal xadiid nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. xadiidka waxaa warinaya nin saxaabada ka mid oo la yidhahdo caabis alghifaari. maalin maalmaha ka mid ah sanad uu daacuun dhacay ooy dadkii daacuun la baaba'ayaan oo dadkii cararayaan oo qaar badan ay goobta ka baxsanayaan, ayuu wuxuu yidhi daacuunow iqaad, daacuunow idil, allow yaana ka bixin. nin meesha joogoo ardadiisii ka mid ah wuxuu ku yidhi seebaad geeri u jeclaanaysaa iyo u weydiisanaysaa inaad dhimato ayadoo nabigu diiday salawaatu rabbi wa salaamu calayhi arrintaa iyada oo uu yidhi midkiin yuusan geeri tamaniyin, geeriha jeclaysan. maxaa yeelay haddii cimri kuu laaban yahay, mar walboo cimrigaagu sii dheeraadaa kuu fiican. haddaad khayr lahaydood wanaag waday oo daaco aad haysayna cimrigaa kuu kordhay iyo sii jiritaankaasi dan baa kuugu jirta. haddii aad shar iyo xumaan iyo macaasi ku jirtayna in lagu dibdhigaayay maslaxa inay kuu jirtaa dhici karto, inaad soo noqoto toobad keentaa dhici karaysa. saas daraaddeed midkiin yuusan geeri tamaniyin nebigaa yidhiyo maxaad geeri u weydiisanaysaa oo aad u leedahay daacuunow iqaad. markaasu wuxuu yidhi nabigaan ka maqlay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo leh 6 arrimood intaysan dhicin acmaasha wan wanaagsan u degdega. bimacnaa 6daasi hadday dhacdo khayraadkii iyo acmaashii la samaynayay wax badan baa ku soo kordhaya. waxaa imaanaya caqabaad fara badan, waxaa imaanaya arrimo badan oo adkaysa khayrkii la samaynayay baa soo kordhi doona. intayna kugu imaanin khayrka u degdega buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo uga hormara. 6 arrimood buu nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. 6daasi markay timaado bimacnaa waxay ku tusaysaa zamanku inuu fasaaday, xaaladuna culus tahay, ruuxa wakhtigaa noolna xaalkiisu inuusan sahlanayn, aad iyo aadna inuu u fiirsado u baahan yahay. wuxuu nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh 6daa wuxuu ugu horraysiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh imaaratu sufahaa, dad caqli yar oo garasho yar oo garaad yar oo aad u fudud in ay xilka muslimiinta qabtaan. xilka iyo madaxnimada iyo siyaasaddu inay fasaado oo intii sharka lahayd ay xilka qabtaan. akhyaartii iyo intii waxgaradka ahayd iyo intii aqoonta lahayd iyo intii alla ka cabsiga lahaydna in xukunka laga fogeeyo. xaaladaasi markay dhacdo arrintu waa fasaaday. wuxuu nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh madaxda noocaasi inay 2 arrimood kulmiyeen: been ay mujtamaca iyo bulshada ku maamulaan, iyo dulmi iyo cadaalad darro iyo xaq darro ay mujtamaca iyo bulshada iyo dalka ku maamulaan. labadaasay kulansadeen. saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ninkii u gala oo xafiisyadoodii iyo goobahooda ugu taga oo beentooda rumaysta ama dulmiga ay dadka ku hayaan ugu kaalmeeya
iga mid ma aha buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh aniga iga mid ma aha xawdkaygana ku soo aroori maayo buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi aniguna isaga ka mid ma ihi riwaayaadka xadiidka qaar ka mida nabigu wuxuu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh in ay yihiin dad suuradoodu suuro bini aadam tahay laakiin quluubtoodu quluubu shayaatiin ay tahay naxariis darrada iyo cadaalad xumada iyo danaystanimada iyo nafcinimada markaad fiiriso qalbigoodu waa qalbi shayaatiin siday sharki iyo xumaanta uga shaqaynayaan laakiin suuradu waa bini aadam waa faarax iyo cabdullaahi iyo cabdi weeye waa nin aad garanayso oo suuro bini aadam leh laakiin qalbigiisa iyo dhaqankiisa waa dhaqankii iyo qalbigii shayaatiinta saasuu nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maanta xaaladda muslimiinta haysataiyo dadka xilkooda qabtay in badan oo ka mid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh tilmaamaha uu bixinaya waa ka muuqata saas daraaddeed buu nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiista qaarkeed wuxuu ku yidhi oo saxaabadiisa ilaahay uu uga baryey waxaan ilaahay magan uga ahay in aad gaadhaan xilliga dadka noocaasi ay xilkiiyo mas-uuliyadda qaban doonaan ilaahay baan magan uga ahay buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh taasi waa qodobka koobaad oo markii siyaasadda iyo xukunka iyo dowladdu fasaado fasaadkeedu wuxuu saamaynayaa dalkii iyo deegaankii iyo dadkii oo dhan bay saamaynaysaa saas daraaddeed khayrkii baa yaraanaya waannaasu calaa diini muluukihim dadkuna madaxdooda diinteeda unbay inta badan qaataan hadduu nin safiihoo kharibanoo caqli yar ummadda qabsado ummaddii safaha iyo istikhfaafulcuquul buu ku samaynoo halkaasuu marinaya qodobka labaad ee nebigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weeye kahratu shurad shuradka waxaa la yidhaahdaa waa kaalmeeyayaasha madaxda waxaa badanaya kuwa u kaalmeeya madaxda u kaalmeeya madaxda dulmiga ku salaysan ee caqli yare fudaydkiiyo caqliga isku darsaday ayaa waxay samaysanayaan intaasoo hay-adood oo ugu kaalmeeya dulmigooda iyo xumaantooda ugu kaalmeeya maxaa booliisa maxaa fulaan ah maxaa kan ah boqolaal malaayiin calashaani waxa weye waxay ku tusaysaa markay kuwaasi bataan dulmigaa batay hadduusan dulmigu badnayn looma baahdeen acwaantaa faraha badan looma baahna cadaaladii markay jirto cid walba meeshiisay ku dhergaysaa waana seexanaysaa cumar radia allahu tacaala canhu ardaa ayaa nin socotaaba intuu madiine yimid isagoo khaliifkii raadinaya cumar buu raadinayaa xafiis weyn iyo meel la waardiyeeyo iyo ciidamo meelay ku wareegsan yihiin buu raadinayey markaasuu wuxuu u yimid nin miskiin ah oo geed hoostii jiifa oo carrada ku jiifa oo hal ruuxa waardiya uusan la joogin waa yaabay war madaxdaannu ka nimid iyo meeshaannu ka nimidi intaasoo waardi iyo intaasoo booliis iyo intaasoo madax guduud balaayaa isdaba taallay muxuu ahaa ninkan geedka hoostiisa iska jiifa adduunka inta ugu badanna ka taliyo awoodda leh waa yaabay markaasuu sirta fahmo wuxuu yidhi cadaaladdaad samaysay baa keentay adoo keligaa a geed hoostii inaad seexato kahratu shurad daliilun cala adulmi waxaa kaleetoo nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ku saddexeeyey oo arrimahaasi dhacayee fasaadka ku tusaya nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xugumka iibsigiisa xugumka in la kala gato sidii badeeco dhar ah ama dhul sidii badeeco oo kale xugumka in loo kala iibsado oo lacag la dhaafsado laba arrimood baa laga wadaa in laaluushku faafo oo fasaadku faafo oo xukumkii maxkamadaha la kala gato oo ninka garta qaadanaya uu noqdo ninka ugu lacag badan yaa ninka garta loo goynayo qaadigii maxkamadda fadhiyey buu laaluushayaa looyarkii buu lacagta siinayaa ninka lacagta badan baa garta loo goynayaa amaa faqiirka iyo miskiinku mar walba bannaanku yaallaa waa dulman yahay baycu lxukmi nebi maxamed baa sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana tan maanta taallo wey talabaadee xadiidka soo gelaya waxa weeyaan in ninkii xil loo dhiibayo xilka uu ku gaadho inuu iibsadoo gato xubinkii baarlamaanka ah waa inuu lacag baxsado wasiirkii waa inuu lacag baxsado guddoomiyihii gobolka iyo gomortoorihii waa inuu lacag baxsado adeer haddaadan lacag bixinin waxba lagu siin maayo kursina lagu dhiibi maayo
وحالة أيضنا ما أنت تعالى بيع الحكم حلكي مسلمين إن لك لا يبصدوا العقل نقضه وقيمه سهل كالله قلب كأفراد النبي قال صلوات ربي وسلام عليه وكتل مامي إن ديق الله فضوضيسته ديق ديق إلهي إلاليي ومسلم إسلامي إيمان ديق يسلقوا إلاليي أما وقال أمان إيا عهد ديق يسلقوا إلاليي لوداسي أو اسم إسكالي حق ديق إن ديق دادين تيسو فضوضادو سفض الله داديو أما ما هي كي داديي وسن أبالكي سهرين لقصاص أو بنانك إسكت مشليو انتاسو خلق عكت مريو أو انتاسو أمضوط بابئيو هدنا إنو كو أمانادو أو ريركي سو دفاعدو أو مدحنما إيو كرسي لغسيو انتاسو ديك بوسو دادي ومد بوسو بابئيي بدل كي لقصاص لها أيو أبالقود وحووها لي إن شقب اللغسيو ديقو الله فضوضيستو ما أنت وحويان ديق معصوم كل الضاديو وكفضوديا كان يعو انت الله قبطو الله ما تشوشيو للدلو ضد بدن قار بدن الدين بيبا كاقشايا وحي أفهمين ديق إسلام كل لغتن تاي إن الجهاد تهيو في سبيل الله تشنابا لغوق ليابا بقولال عكتا مري مشكلة ماله إلهي أكتي سنة شهيد باتو تشنات كنتكي ساهير كاسي قارسي سنتهي استخفافا بالدم دي قول الله فضل يستبو نبي محمد يلي صلوات ربي والسلام عليه قضب كالشانات فساد كالزمن ككتوصية مركي انتوصن إيمانين خير كاللوباي إن لو دق النبي بوحو شيء صلى الله عليه وسلم قرابة ولا قويو قرابة هذا إناد قويس ود إهل كاقا قويس ود إحسانك كقوصت ود صلانتك كقوصت ود وحترك كقوصت ود سردوينتك كقوصت ود نقطة كليجي نولالي كليجي نولالي أنانية واتن ما أنت تشيرتوي مقالها دي للصوق لا يوهنتي لا يشي قرابة لما يقانو إهل كي قاتشي وبابا أيان وأذيره وإلماذيره وإيدوين وهابريره ومحوها قرابه وحكته قاتشي بابا أيان إساقنا ومليونير ميلو كالجيو لا يهي قرابة قيسوي ولا يدخل الجنة قاطع الرحم إلهي وحو بلن كقاضي ننكي قرابة دي سقوية إنو قويو ننكي حريريانا إنو حريريو نن قرابة دي سقويين إلهي أكتي صاحبكم الله ناربو إلهي أكتي سكوليه تبارك وتعالى إسكبنا في رحمك إن لقويه عالمكم أنت وحو مريا إن رحمك ماشو كسا ليسنا إيا حديد كيسيبا إن إساق ننبل لقويه أبترك إيا النصبك أبترك إيا النصبك لأن الله تبارك وتعالى أبترك سوحو كسل إيا النصبك أيوحو كسل إيا كرتب أحكام فربضا وي قرابا نمضو كمتو أحكام تاسي كرنا ليس وحل ليها أدر هلقويو حتى إلمها إيا هو يدي إيا إلمها إيا آبه إيا قيسكي أبترك ليا قرابك لإسكدا إن لبربري الله بابي إيا نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه وحو كتل مامي إني فساد دهي قضبك قدام بي أحبتي في الله اللي حاد نبي وحو صلوات ربي والسلام عليه دلن يرى دأير قرآنك كتلغانا يسيدي مزامير أوكالي وحيالها لقراعية كبندا صوتك قروح دا بدن بحيا أول لدقيستو قرآنك تاسو كالي كتلغانا ينبوري ودد دأيرو دلن يرى dadkii la noolaa iyaguna quraanka waxay uga qastayaan sawdka quruxsan sidaas daraadeed ruuxay hormarinayaan oo salaada u hormarinayaan oo tujinayo imaamka ay ka dhiganayaan waa midkaasi quraanka sida heesaho kale ugu heesaya haba ahaado midkooda ugu fiqi iyo fahan xun ama ugu faham yarba haba ahaade waxay fiirinayaan kaliya yaa cad quruxsan quraankii meeshii la doonayo macnaha in la abaaro oo macnaha looga qasto oo da'yarta baranaysana ay noqoto quraanka fiqhigiisa iyo fahamkiisa inay abaaraan dadweynuhuna inay fiqhiga iyo fahamka wariya quraanka macnihiisa fahmaya ya ahkaamtiisa fahmaya halkaasi in la aado meeshay ka ahay sawdka iyo alxaanta iyo codkan quruxsan intaas la aadaya amma dhanka kale lama badanaynayaba inhiraaf weyn weeye oo ummadan ku soo kordhay in quraanka macnihiisana la dayaco cad quruxsan kaliya tan hadaf laga dhigiyo ujeedo laga dhigto
qaabkii saxaabadu wax u baran jireenna ma ahayn ridwaanullaahi calayhim allahna uma soo dejinin in codka lagu qurxiyo keliya ee wuxuu u soo dejiyey kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab macnaha in la fahmoo la dhuuxo kadibna dhaqan iyo tadakur inay ka faa'iidaystaan baa loo soo dejiyey saxaabadii nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh 10 aayadood bay qaadan jireen markaasay cilmiga ku jira iyo akhrintooda iyo camalkoodaba baran jireen markaasay uga gudbi jireen 10 kale inay qaataan sidaasaa waxay hal mar ku keeneen qur'aankii iyo cilmigiisii iyo camalkiisii bay hal mar barteen laakiin inxiraafka dhacay baa wuxuu yahay qur'aanka akhrintiisa keliya in xoogga la saaro sidii mazaamiir iyo kaman oo kaleetana qur'aanka sawdkii lagaga dhigo oo laga saaro xuruuftii yani wax weeye xuquuqdeedii tabiiciga ahayd dadkana hamigooda inuu noqdo qur'aanka uun sawdkaa quruxsan keliyata xaaladahaasi markay dhacaan oo arrin muuqaalada noocaasi soo baxaan zamanku waa fasaaday xaalkuna ma sahlana khayrka samayntiisiina wax badan baa teedayo caqabaad buu yeeshay intuusan imaanin khayrka u degdega buu nabi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaba 6daba maanta waa la noolahay 6da arrimood ee nebigu sheegayba maanta waa jiraan waa la noolahay wayna ka sii dari doonaan sida ku sugan axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh mar kastoo qiyaamada loo sii dhowaado arrintu tastaxkim waa ka sii dari doon waa sii adkaan doonta sidaas daraaddeed khayrka u degdega oo taacada u degdega oo wanaagga u degdega oo waxyaalahan iyayna idin mashquulinin oo rabbigin xidhiirkiisa hagaajiya salluu wasallimuu calaa khaatami alanbiyaa'i waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم ارفع ما بالمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع ما بالمسلمين من القحط والجدب والسنين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع ما بنا من الفتن والقحط يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر